waa islaaninka kuugu taliyana ma garanaysaa baashani waa dawladnimada iyo qabiilkuna isku meel ma garaan wixii dawladnimo aad ku heshay macnaheeda hadaad ka dhigtid inaad ku heshay qabiil sida ma aha baashu dhismaha dalkana hadii la yiraahdo waan ku cadeeyay dadka ay Soomaali la degto ganacsiga leh isbitaalada leh airportka uu ku yaalo dekadii ay ku taalo moralkii ugu waaweyn gobolka Banaadir meesha ku yaalin adigu afkaaga ka cadeynaysid meesha loo soo dalxiistaga inay tahay gabar yar oo 17 jira oo afgaaraha darad la saarneed hadaan lacag helo waxay tiri waxaan aadayaa magaalada xagee ka wadaan ku iri lambar afran u qaqaanay tiri magaalada hadda xagee joogtaan ku iri kaaraan deganay tiri oo baadiye ah marka adigoo kaaraan ka degan gobolka Banaadir inaan today ku muranno qof bini aadan oo soo ku martay kaaga baxay inaad Cabduqaadir gurina aan laga fireysan karin inaad tiraahdo gobolka Banaadir uu kaale inaad waa ku sharaf daro af Soomaalina wax lagu hantiyo adigu shan qof daatahana shan qof hadda hal qof taana hal qof wixii aad ku ahayd waa sheegtay wana kaga bax waa ma santahay booso waxa soo waxaan u maleynayaa shiina wax yar waa ku salaamba sharaf iyo sina ya Abdullahi ahad amesta shiina sina hal daqiiqo sodo sikina hal lahaa bahash waxa ku qurux badnaan lahayd oo ku xalad badnaan lahayd inay coins noqoto oo hadba coins waa ka dhigay اوكي هي Abdullahi sina hal daqiiqo has difaac waa ma santahay shiina raaliga ahaw sharaf iyo ciise kalaaman ku haya waana kaftanaa raaliga ahaw habeen dhaweedna kaftakaaga waa ogaa waa ma santahay niyahow waxaan rabaa waa ma santahay garyaqaan arrintiisa laban u kala qaybina boosow garyaqaan wuxuu qaatay daqiiqado badan ana daqiiqadaas aan qaado doona ka badsamanayo maadaama halkii daqiiqa meesha ay ka baxday soo dhawaada aniga mudulood abgaal taariikhda habar gidir ee xagga siyaasadda aan ugu horeeyaan min bilow ilaa dhammaad cadayna la imaanaya number 1 meeqa madaxweyne oo mudulooda ayaa jira oo dalka Soomaaliya soo maamulay aadan Cabdulla Ismaan aadan Cadde Allah u naxariisto Ali Mahdi Maxamed madaxweyne Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud habar gidir waxay ka soo gashaa Cabdiqaasim Salaad Xasan oo kaliya hoggaan dal meelan maro habar gidir ma mari karto ko taariikhiyan xilligii Maxamed Siyaad Barre aniga geesigaygu asagoo qoslaya ayuu dhintay laakiin geesi asagoo qaxay in maanta taariikh ahaan lagu soo qaatana waa igu foolxumo laakiin labada marxuum waxaan leeyahay Allah u wada naxariisto waana ku faanayaa generaalkii uu yiri toogashadiisii uu ka hadlo waa ku faanayaa waana ku qanacsanahay in uu generaalkaasi aniga igu abtirsado salaad gabayrenin uu ku abtirsadana de ninka badiyo weeye taasna meel idig aan soo daadego dadkii daawanaya taariikhdaas hore ma oga habar gidir markastoon hoggaan noqonayo aniga idhistaa aniga itirtirtaa aniga shaqaale ii tahay madaxtooyada bila Soomaaliya fadhiya dadka maanta ii shaqeynaya garyaqaan oo habar gidir horta iga qabo campaigner baad ii ahayd iga qabo anigoo wacaysla ah ayaan 2 jeer Soomaaliya ku soo noqday campaigneradiduna habar gidir bay ahayeen iga qabo madaxtooyada bila Soomaaliya waxaad sheegatay galmudugay iga qor waxaan ahay ninka shirka golaha wada tashiga qaranka ku fadhiya madaxweynihii qaranka Soomaaliya number 1 madaxweynihii Hirshabeelle number 2 gudoomiyihii gobolka Banaadir number 3 adiguna qoorqoor kaliyaad ku fadhidaa shirka waxaan ahay nin haysta qadiyada guud ee xagga siyaasadda Soomaaliya min bilow ilaa iyo dhamaad taariikhdeeduna waa mid banaanka taala madaxweynenimada Soomaaliyana ilaa hadda waxaan ku weydiinayaa ma ii sheegi kartaa musharax habar gidir ah oo nin abgaal oo campaigner u yahay laakiin anigu waxaan ku hayaa mar kastaba inaad adigu campaigner ii tahay oo mar walbaba aad ka shaqayso i garab taagan tahay macnaha aad ii shaqayso kursigana aad isaarto marka meel mudulood uu taagan yahay wallahi ba'na kama tiitana kama jir xagga siyaasadda meel dhigo waxa tiri galmudug ayaan kugu hogaamiyaa waa su'aal fiican waay ma ogtahay galmudug markaan anigu banaanka ka istaaga anigoo wacaysla inaysan ahayn galmudugta aad maanta sheeganayso inaysan sii shaqaynayn waxaad galmudug ku tahay wacaysle kaalintiisa waxaadna siyaasadda Soomaaliya taariikh ahaan ku joogtaa abgaal ismaan taariikhiyan waxaan ahay dhageyso dawlad kastana waan tirsadaa garsoorka dalka anaa haysta hoggaanka ciidanka qaranka anaa haysta hoggaanka maamulka gobolka anaa haysta maxkamadda qalabka sida anaa jooga
maxkamaddii gobolka banaadir anigaa jooga anigoo abgaal ismaana fiiri taariikh ahaan maanta markii la yiraahdo garsoor guud iyo mid gaar ahaaneedba waxaan ahay ninka maanta garsooraya oo meel walba kaaga horeeya waxaad shiday codkayga waa sax waa cabdullaahi balwaan qofka hadlay nin dadkiisii gubaabinaya ayaad shiday dadkaygan gubaabinayay ma qarsado lama gambado guusha aan lahaana maanta waan haystaa inta aad tilmaamtana dhismaha anaa iskale waa ka dhacday 3 daqiiqo maraysaa 10 daqiiqo garsoor jirnay ما أنا هذا أوكي عبد الله يورال ساعدان laga bilaabo habar gidri abgaal maadaama ay kala matalaysaan nin kasta iyo xoolihiisa waaye habar gidir halkan waa ka maqnaydna ma aqbali karo abgaal inta waa ka maqnaana 4,000 oo qof habar gidir haday maqnaatana waa hagratay abgaal haduu maqyaana waa is hagradeen ninkii sareeya baa hadli kara inta aad kala sare hadda maadaama same atiin waa la sugay Cabdullaahi oo warka wada taraal noqo ninkii sare mar baa hadli kara haddana Cabdullaahi baa laba sareeya ku soco ما تاي أي قريقان عدالة هالمر وحنا رلا 3 دقيقة أنا سيسيت حلام كسيه ما يصدح يقريك حد أصلا صدح يعني ما يي 3 دقيقة هلا يا كبعدي وحقو أنا قارينه مركا أيضا أنكوشين واي عبد الله يقول هذا ما سنتين إن أرت السؤال هذا إن لما ربوا قفكوا إنه تا وريره ميل أوسن هذا الكجيرن أو درتره لما بحنو هبر قدر يا أبجال Soomaalida aan dhageysanaysa iyo ku kan hadda halkan saaran ba ayaa kala yaqaana waxa ay kala yihiin habar gidri abgaalna waxay kala yihiin dayax iyo mugdigu waa abgaal ama mudulood dayuxna waa habar gidri iska dhaaf abgaal iyo mudulood iyo waxaad ka hadlaysay Soomaali baan u nahay anagu iftiin iyo ookiyaalo haddaysan Soomaali habar gidri jiri lahayn wallahi billahi tallahi calan buluugo Soomaaliyeed dhulsa jiri lahayn واسمده أنو أن أميزناه أنكو جيفا عاو مسكين دلاي أو أما الله وهانته أنوغو أديك كوما شقيو تنلبات مدحوينان أهاتري وشادا وحلو ديبتانينا كقادا كرتيد وريا مسكين دلاو ماشي وحلوغو كياني ماشي وحلوغو ديب اللوغا قادا ياتا دل حدي لوغو ديبانا خروق مدقاجي دالكا الصوماليانا دولديه أنك علي إيا دادكي أنكو قميستي أيا وحدورتا cambuulaata abgaal markaa tahay taariikhda eva haddaad ii sheegtay qabiil Soomaaliyeed hawiye iyo daarood iyo dir iyo raxan weyn ee aad gacan isla gaarteen haddaad ii sheegtid qabiil waxa tahay soo halgamay qabiil waxa tahay jira qabiil waxa tahay aanan gubaabin anigu qabiil waxa tahay aanan ugu difaacin haddaad ii sheegtid halkaas waxaan soo dhiganayaa Soomaali oo idil inta gaalkacay gurigeyga ka soo tagay inaan gumeeyay oo guriyahoodii ku qabsaday oo aan maanta deganahay dawladnimada ku soo hartay dawladnimada waxaad ka tahay cawaan dhalay oo qaawan oo kaba meeshii wax loogu dhiiba loogu keenayo ushaadana waxa loo dhiibtaan inaad ka qaadan kartid dameer loo dhiiba hadhowna kala degi kartid anigu waxaan ahay gumaysta gaamuray oo aan meelna wax looga dhaqaaji karin wixii uu gacantiisa ku dhigana aan ciido ka furfuri karin waxa ku soo hartay Xasan Sheekh madaxweynaha Xasan Sheekh laba wiil oo reer Xaaji Saleebana oo midna la yiraahdo Abshir Buqaari midna la yiraahdo kale odawaa aqalinka la haysta waxa aysan iyagu saxiixna ma saxiixi karo habar gidir is a king maker ay ka yihiin dawlad aan anagu majaraha u hayna ma dhaqaaqi karto mana ka shaqay karto dalka Soomaaliya hadda adiga balwaanu haddaad madaxtooyada u baahatid wallahi inaad Xasan Sheekh amar weydiinayna Abshir Buqaari baad weydiinaysaa ma adiga gali kara oo Abshir Buqaari amar ka haysan madaxtooyada ma gali kartid cid kale ma gali karto taa dhagahaaga horta ku dhibcido qalbigaagana ku qabooji aniyaygan saaranahay Soomaaliyana kingi meekaran ka ahay qaramada midoobaan ka ahay qof aan aniga amarkayga qaadanayna kama shaqay karta dalka magaalada Muqdishona waan ka gubay afkaaga isku toogatay runtaad ku cadayda afkaaga runta ku cadaysiday dad bartaan waa ma santahay
وقت يعني وصل وحرب انا السيو كادي إيكاد بوس ميا هذا ما انا سمعت قفنا مايا ما إنا كجواب واي هل ده كدنا وبلابنا سهل إيسيني لانقا ما نهاي سهل إيسيني سدع عزيزي ايوه صدح يقول صدق كان نوفر معي مايا كدب قوان كيدا كدبنا هذا قف فيه Soomaaliyay wuxuu yiri walaalkay garyaqaan marka la horto waxaan leeyahay cid aan cudad u qabo ma jiro dadkaygan difaacanaya dadkayga markaan difaacanayana waxaan xaq u leeyahay wixii dhab ah inaan sheego iga raali xado walaalayaalow Soomaaliyay aan dib idin xusuusiye habar gidan inta isku tagtay doorashadii dambaan ka hadlayaaye oo ay shir jilcid qabteen oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu hadlayay ayay hanti waxay lahaayeen isku geeyeen 15 codeena heleen habar gidan oo dhan waaya 15 cod ka been abuuri maayo musharaxiintii habar gidan marqaati ka yihiin dadka Soomaaliyeedna marqaati bay ka yihiin horta nin 15 cod helay inuu maanta nin mudulooda oo laba jeer madaxweyne Soomaaliya ka noqday iskoorka aan haystana uu yahay 214 cod waa ku kun jibbaar ma horta Soomaalina aniga haday aragto hawiye kale gaari maayee habar gidan dooran mayso waana kaaga horeeya kalsooni min lagu qabo muduloodo abgaal aan ahay laba jeer aan Soomaaliya madaxweyne ka noqday adoo 15 cod haysta inaad dad laangaab ku sheegto dadna aad ku tilmaamto dad liito horta fool xumo taariikhda qormi doonto weeye meereen ku qormaysaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo habar gidan u jeeda ayuu aniga i dhisay ayuu aniga i taageeray muxuu igu taageeray wuxuu og yahay qof aan abgaal ismaan ahayn Soomaali inaysan aynan aaminin waa kaaga kalsooni badanahay waa kaaga sumcad badanahay 39 musharax ayaa anigoo abgaala intaan ka soo dhax baxay ayaan horta hogaankii dalka haya ku bishaarayso dhigtana ku dhibciso kaambeynadii aniga ii shaqaynayay dhammaantood inay beesha habar gidan ka soo jeedeen walaalnimaad iigu shaqaynaysa yes laakiin walaalka waa inuu sumcad iyo sharaf xaggaaga ka leeyahay walaalnimada lagu sheegayo horta waa taas waxaan rabaa inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan habar gidan hal jeer ay Soomaaliya madaxweyne ka noqotay laba jeer ayay tartan madaxweynenimo ilaa 3 jeer ay heleen saddexda jeerna marna laba cod ay heleen marna hal cod ay heleen marna 15 cod ay heleen aniguna taariikhdayda mudane Shariif Sheekh Axmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud marqaati ma doonto weeye wuxuu yiri madaxtooyada markaa tagto abshir Buqaariya iridda kaaga hor imaanaya waa ku faraxsanahay maxaa yeelay adaa iridda ii taagan anigu xafiiskaygan ku raaxaysanaya adaa iridda ii taagan afkaagaad isku toogatay in abshir Buqaari albaabka uu taagan yahay anigana uu ilaaliyo sharaf ii dhiman maxay tahay ii sheegi kartaa haddaadba adigu albaabka ii taagantood i waardiinayso qofka ii soo gudbaya adoo ku soo mara taariikhda Soomaalidu ma taqaano runtii la soo sheegaa muhiima meesha aan taaganahay adiga ka marqaati kacay waana muuqataa barnaamijkeena taala kuwa maanta aniga i hoos joogana tiradooda waad u jeedaa inta qof ay aad sheegtay nin aan dad ka dhigan aniga kuma jiro nin walbana ana xilka u dhiibana ana ka qaada meesha ana amiirka ah Soomaaliya ana Abdullahi Bilon 20 sano ku hartay Soomaaliya ana hogaamiya marka waxaan leeyahay meel aan maro ma soo mari kartid ugu dambayn marka